أيها الإخوة الكرام، maanta waxaanu ka hadlaynaa hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sida loo taariikh geliyey oo hijrada taariikh mu'araqa looga dhigay yaa ka dhigay weeye macnaheeda. waayahay hijradu maxay ka asaasanta, maxaa sabab u ahayd marka hore in hijrada rasuulka uu sameeyo? rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaalada maka waxaa kula soo dega qur'aan fara badan oo gaaraya 91 suuradood, maadaama qur'aankuba uu yahay 114 suuradood. inta badan reer maka kama faa'iidaysan risaaladii rasuulka iyo dacwadii rasuulka. waxay cariiri geliyeen asxaabtii oo waaweyneed, haddii uu yahay abubakar, hadduu yahay cumar, hadduu yahay zubayr bin alcawaam, hadduu yahay dalxa bin cubaydillaahi, caamir bin cabdillaahi bin aljaraax, abu cubaydata, raggaas oo dhan kulli tutac cadaabaa la gelshay. ilaa cuthmaan binu cafaan xataa sanadkii shanaad ou u haajiro ama sanadkii saddexaad oo bicthada wey, hijrada maaha. dhulka xabashada uu u haajiro, dhulka tigrida dhulkeeda waa soo noqda. haddana sanadkii markaa shanaad ayaa cadad fara badan oo dumar fara badan ay ku jiraan, oo sayd cuthmaan iyo xaaskiisi iyo gabadhii rasuulka ay ku jiraan, ayay dhulka xabashada soo aadeen. waxayna noqdeen sanadkii 7 ee hijrada. hijradu marka waxay ka asaasantay dhibaato loo geysta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, oo xataa la gaarsiiyo inuu kacbada maxuu ahaay maka ku duka waayo, maka magaalada maka masjid alxaraamka inuu ku duka waayo, oo abu jahal ou yiraaho ha ku dukanin masjid alxaraamka dhexdiisa. lain ra'aytu muxamadan yusalii fi lkacbati la ada'ana calaa raqabatihi wala aqtulanahu. wuxuu yiri haddaan arka muxamed oo ku dukanaya maxuu ahay kacbada agteeda, surkaan isaga taaga waa dilayaa. marka wou reebay, qur'aankana waa lagu cambaareeyey reebitaankaas ou nabiga ou yiri ma ku dukan kartid masjid alxaraamka dhexdiisa. waayahay arrintii waxay isu bedeshay markaa in la kari waayo oo asxaabtina diintii ay sideeda usii barato, cadaadiskii ay u dul qaadato. 70 iyo dhowr aayadood ama suuradoodna ay ku soo degaan nabiga inuu sabro ee u dul qaato intuu diintiisa uu ka faafinayo. haddii nabiga la cadaadiyey calayhi salaatu wasalaam, waa lagu guulaysan waaye 3 jeer iyo mufaawado lala galay. mufaawadi lala galay waxaa u dambaysay sanadkii 10aad, ayadoo adeerkii abi aalib ou yahay fi maxuu ahay cala sariiri ou yahay, ayay u yimideen quraysh. markaasay waxay yidhaheen waxana dhibaya, adiguna way ku dhibayaan, maxamed ka jooji waxa uu sheegaayo iyo asnaamta uu caayaayo iyo firdhinta uuna kala firdhinaayo iyo kufriga aabbayaalkayna uu ku xukminayo iyo aalihadayna oo wax ka sheegayo. waa mujaamaleeyi, waa iska naqdeen, mufaawado ayay ila gali damceen. hase yeeshee nabigu waa diiday. waxaa yidhi wallaahi low wadacu shamsa fi yamiini waalqamara fi yasaari calaa an atruka hada alamr ma taraktuhu xataa yudhirahu allahu. ilaahaan ku dhaartay, hadday dayaxa soo qabtaan ama maaragta bisha ay soo qabtaan ama qoraxada ay soo qabtaan, waa qoraxada waxu sheegaye ee midigtayda ay ku dejiyaan, ama ay soo qabtaan dayaxee midaxtayda ay ku dejiyaan, amarkaan maka tegaaye inta ilaahay uu ka daahiriyo oo ilaahay mid soo baxda risaaladu ay ka noqoto. adeerkii waa sabray, gaaladuna way sabartay, cadaawadiyaa daraatay, risaaladuna way fidaysaa. markaas tadriijiyanay u fidaysaa, tartiib tartiib bay u fidaysaa risaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam.
markii la gaaray sanadkii sida taariikhdu ay sheegayso ama culimmada qaarkeed ay sheegayaan muxaqaqna ma aha, lama xaqiijin sanadkaas sanadkii 11 ama 12 iyo rasuulka aaday magaalo ku dhow Maka isagoo nusra ka rajaynaya inay u gargaaraan diintana ay qaataan, asagoo wata hal nin oo addoonkiisa ah markaas Zayd bin Xaarithata. magaaladiiba uu tegay, marka uu tegay wuxuu kala hadlay nimankii madaxda ahaayeen iyo kala hadlay diinta islaamka inay qaataan. diinta islaamka waa lagu diiday, waa lagu fooriyey, waa lagu dhagaxna waa lagu firdhiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. malagii buuraha u yimiday markaasuu wuxuu yidhi ilaahay qowlkaaga waa maqlay, waxa dadkan kuugu jawaabayaan qowlkoodana wuu maqalyo ilaahay. haddii amar aad bixiso tiraaho buuraha dhinacyaalka ka xiga Makaha lagu daboolo waa la fulinayaa. markaasuu yidhi waan sabrayaa, waxaan rajayahaa dhabarkooda in dad islaama oo wanaagsan uu ka soo baxo. caaisha su-aasha markii dagaalkii Bedr uu dhacay kadib waxay tiri rasuulka ilaahayow ma aragtay maalinkaaga dhib badan, maalintii Uxud maalinkaaga dhib badan ma aragtay? markaasuu yidhi ajal waan arkay buu yiri. wuxuu yidhi qoomkaaga ama dadkaaga carabtaa markaan risaalada u geeyey falam yujibnii ilaa maa aradtu, igama ajiibin wixii aan doonayay. cabdi yaaleyl ibni cabdi kulaal falam yujibnii ilaa maa aradtu walam astafiq ilaa wa ana biqarni facaalibi. igama ay ajiibin risaaladii aan geeye, mana igaan aqbal cabdi yaaleyl ibni cabdi kulaal. marka waxaa malag yaa samada kasoo degay buur oo buuraha xisaabnaay. wuxuu yidhi buurahan ilaahay waa maqlaya qowlkaaga iyo waxay kuugu qowleen, waxaad ku hadashay waxay kugula hadleen ay ku diideen. buuraha dhanacyaalka ma ka mariyaa oo ma ku daboolaa Maka? markaasuu yidhi maya, waxaan rajaynayaa dad islaam inay dhabarkooda ka yimaado. wou ducaysta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ducow akhriyey oo uu leeyahay allahuma inii ashku ilayka lacfa quwatii وقلة حيلتي وهواني على المخلوقين وأنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن علي غضب منك فلا أبالي، ولكن عفوك وعافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات والصلوح علي أمر الدنيا من الآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عذابك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أو أخريت دعاها سو أخرست رسولك كبعدنا إسره يا كو حقصدي أو سنة لبيا طبنات لرجينا إنه هاي ولسو نوي سمدها لسو نوي ملائك با قابشي نبي البا قابلي صلاة وكياني مركاسو صلاة بالسوسية كبعدنا وحوج على النبي عليه الصلاة والسلام هجرة magaalo ku taala muxuu ahay dhinaca kale oo khaliijka dhul ku yaala inuu u haajiro iyo inuu Madiina u haajiro. asagoo Madiina ay laabtiisa ku jirto ayaa muxuu ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam taageerayaalkiisii iyo mu'miniintii iyo islaamkii ayaa magaalada Maka ku batay, aad iyo aad ugu batay. maxuu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam? waa dul qaatay, laakiin ha yeeshee quraysh baa isu yeertay, waxaa la qabtay shir weyne oo lagu qabanayo daarta caqiil aw cuqaal. daartaas oo Maka ku taala oo hadda ka mid noqotay xaramka dhulka uu soo galay, ka mid noqotay meesha sacyiga. daartaasaa shir weyne lagu qabtay. shirti markii lagu qabtay waxaa laga hadlayay qadiyadan nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta inay faafayso, quraysh in gacanta la gelinayo, aalihadeeda ama asnaamtooda ay jecel yihiin la burburi doono. saasay isugu baaqeen. shiraa baa la qabtay.
shirkii waxaa isugu yimid sanaadiidu quraysh. Sanaadiid markaa maqasho zucamo waay, zucamo quraysh. marka raggi kaleentood 100 jilib waaye ayaga qurayshta. jilib walba ninkii ka madaxahay ayaa shirweynaha soo galay. markay soo galayeen baarlamaankaas ama daaru nadwa ayaa waxaa la arkaa nin dhar qurxoon wata oo halkaa muxuu ahay taagan oo ay la yaabeen. waa la su-aalayo waxaa la yidhi adigu ku maadaheeday. markaas wuxuu yidhi rajul nin baan ahay idinkaaga yimiday dhulka la yidhaaho xijaas ma aha, dhulka kale oo sacuudiga uu degan yahay oo caasimada riyaal ay ku taalo, dhulkaas ayaan idinkaaga imiday buu yiri. dhulkaas waxaa la yidhaahaa marka xijaas, dhulka xakumo waa qeybta koonfuro, qeybta aan riyaal iyo na magac bay leedahay. magaceedu waxaa waaye dhulka sacuudiga asagaa badan ilaa dowladaha khaliijka iyo ku tiirsan yahay dowlad walba ayuu ku hor dadban yahay. halkaa baan idinkaaga imiday waxaana ka qaybgelaa shirweynaha aad wadatiin ayaan ku faraxsanahay, qayb baan ka hergelinaa. sidaabuu yiri. markuu sidaa yiri way waafaqeen, waa la gelshay shirki markii la gelshay oo shirki waa furmay. waxaa la soo jeesay marka aaraa mutadaariba, aaraa iskaraacaysa, ra'yaalo iskaraacaya. ra'yaalkaas iskaraacaya iyo shirweynahaas waxaa ku soo aroora aayad qur'aan oo qur'aanka kamida. waid yamkuru bismi illaahi araxmaani araxiim waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin. ayaa ku soo degta aayaddaas inay maakiriin ahaayeen, ilaahayna uu ka jaasin doono makrigaas, uu ka jaasin doono. aayaddaa markay ku soo degtay nabiga calayh salaatu gadaali ka soo degi doontaa ma aha, maalintaas ma aha, gadaali ka soo degi doontaa. waayahay shirki waa la waday. shirki marka uu socdo nin walba ra'yi buu ka dhiibtay. nin wuxuu yiri muxuu ahay ceel baan ku ridaynaa, marka halkaasuu ku dhimanaa. waa la diiday. waxaa la yidhi nabi yuusuf baa ceel lagu riday, waa la soo baxshay. si nabi yuusuf loo soo baxay taageerayaal uu leeyahay. mid baa wuxuu yidhi marka guri baan ku xidhinaa, aan ku qafilaynaa, marka cid soo bixinaysana ma laha. markaasuu yiri mid waa hadlaa, hadalka u hadla derbiga gadaashiisa ha gudbihaya, taageerayaashiisa oo gadaashiisa jooga iyo hadalkiisi qaadahaya. markaas weerar bay nagu soo samayhayaan. waa la diiday. mid baa kaloo hadlay wuxuu yiri xabsi baan gelinaynaa, waa xabisaynaaba isaga dhanba. waa laga diiday. mid baa wuxuu yiri nafyi waan anfinaynaa, waan fogeynaynaa, macnaha meel dheer baan geynaynaa uusan ka imaan karin. waa laga diiday. abujahal baa markaa gacanta taagay. markaasu wuxuu yiri in ra'aytu bilaata walcuzaa wa manaata thaalithat alukhraa. aan ku dhaartay asnaamtaasaan ku dhaartay. ra'aytu maa ra'aytu ba uri qad asabtum, inaad asiibteen ma anan arkin. wallaahi ina lii ra'yan, aniga ra'yi baan leeyahay buu yiri. ra'yigaas muxuu yahay yuri inana nakhtaaru min kuli qabiilatin min qabaa'ili quraysh shaaban jaldan macahu sayfun saarimun fayadribuuna calayhi darbata rajulin waaxidin fayamuutu fayatafaraqu damuhu fi lqabaa'il yuri watardaa qabiilatuhu bidiya. wuxuu yiri inaga jilibyo badanaa nahay. waxaa waaye bani makhzuum waa jilib, bani sahmi waa jilib, bani asad waa jilib, bani maxaa cabdidaar waa jilib, bani maxuu ahaay bani zuhrata waa jilib. waxaan nahay intaasoo jilib baa naho quraysh. jilib walba hal ninoo dhalinyaraho geesiya oo seef wata ha laga soo doorto. caawa markuu masaajidka soo aadayo ha ku dhiftaano. dhiigkiisa marka qurayshaa bixinaysa. waxaa weeye qabiilkiisa ama qoladiisa yarta ah
oo la yidhaha bani haashim asaga waxaa la yidhaha moxamed binu cabdillaahi binu cabdilmuطalib binu cabdimanaaf binu haashim binu cabdimanaaf haashimiyiintaas waayo haashimiyiintaas nabiga calayh isalaatu wasalaam ma difaaci karaan diya iska qaadahaya diyadooday raalli ku noqonayaan diyadina quraysh baa bixinaysa waxaa la yidhaha asabta yaa abalxikam adoo ewelba xikmo badneed waa asiibtay dilkaas waa kugu raacnay habeenkii marka gurigiisa la hareereeyey intaan habeenkii la gaarin rasuulka jibriil baa u tegey oo u sheegay waaqicadii waa soo baxay duhurkii wuxuu u yimiday abubakar abubakaro wuxuu yihi quraysh caawa sidaasay damacsan tahay dil bay damacsan tahay waana ka haajira aniga waa ka tegaya markaasuu yiri asuxbatu yaa rasuul allah aniguna waa kula saaxiiba intaankaaga haraya maadaama aan sidiiqiba ahay aniga kii ku rumaynaya aan ahay markaa sidaa ay dhacdo saa la yeelay rasuulka wuxuu u yeeray cali ibn abi aalib inuu habeenkii gurigaas seexdo uu yihi ku taaban maayaan gurigaas seexo wadaa'icdayda iyo amaanidaydana adaa ka wakiil ah go-kiisa maratiisana uu siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay calibna guligiiba uu ku qafilay lagu qafilay markuu soo baxay waxau arkay gurigiiba lagu hareereysan yahay gebigiiba qabiilkiiba ninkii laga soo doorta seefuu halka la qarqaraya gacanta turaab yar ku qaatay yaasiin buu ku akriyey sudan wa min khalfihim sudan faakhshaynahum fahum laa yubsiruun ama sadan wa min khalfihim sadan faakhshaynahum fahum laa yubsiruun waa afuufay waa ku sayriye kulligoor waa gaartay waa yahay markay gaartay mid walba waxbuu u jeedi waaye araggii baa ka tegey aragga waa taagan yahay waxna ma arkaayo waa dhex maray waa iska tegey isaga abuubakarkina meel bay ku ballameen buurta la yidhaaha qaaro thawr ayay galeen aroortii markii la arkay inuu sayid cali ka soo baxay gurigii nabiga oo nabigu xalal la waayey abujahal iyo intii cadaawadiis ee farday inta ku ordeen ay dhinac walba beledka uga ka raadsheen hal cag baa laga helay hal cagtiisa meesha u saaray hal cag halkii cagay arkeen marka inuu buurta ku jihaysan yahay buurtii bay tageen buurtii waa dhex galeen waa ku wareegeen markay buurtii dhex galeen abujahal laftiisu waa dhex galay waxaa tacriish ku samaysay marka qooley hamburuq dad baa yiraa qooley dad baa yiraa bahashaas oo laba ugxan leh ayaa inta soo qabsatay weerartaa ku leeyahay abujahal indhaha ka weerarta weliba inta yaabay markaas iyo labadii ugxanoo meesha u teel mid kamida jibiyey marka uu jibiyey waa darsatay caaro haddana aad sadaqdayba meel kasta caaro iyo waxay ka dhigta dhar ku weerataan ku leeyahay marka waa fiirshay wuxuu yiri maxamed ma ku jiriyaa markaasoo mid wuxuu yiri محمد انت عن لبا اومن يا عارة ماشي دكان يدور عارة دكان عنكبوت بقى لغوية عربي عنكبوت ونقدين بورتا يهدر كوركا كفولين دليل بيالتي هوس ما اي نفير مركا وحوري ابو بكر اركا انو ميد كوركودا تاغيه مركا وحوري لو نظر احدهم تحت قدميه لا أبصرنا لو أبصر أحدهم تحت قدميه إلا رآنا وحويري هدي متكوض أو عربها يسفينا له فيري لهاي ونعركي لهاي مركز النبي ما بالك في اثنين الله ثالثهما لمن أو إلهي أو لجر محض لينا يسا أو ربي قوض أو كرب تاقيهي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلهي السكينة بوكسو تجيه سد حبين بيكون جرين هالكاس وحا عانا اوكيني جرو اوغاي أسماء بنت أبي بكر أو مالنتا نبي أبو بكر انتقاي لجوكتي أري ماشكو إلى عليه عانا كان لسه لك حانا يكون قديها راتك أريقنا ميل كلا اللوغو دا دور كلا اللوغو فردها مركا habeenkii caana keenayeen waxaa waaya asma
iyo cabdullaahi binu mascuud caalimkii gaabnaay iyo caamir binu fuhayra ninkaas oo abubakar dadku u xoreeye kamida oo addoon ahay markiisii hore aanay inta dhiila ku lisaan ay dhagxanta gelinayaan habeenkii sakda dhexe inta imaadinaya waraabinayaan nabiga abubakar meel kale raadkooda u bixayaan intaan aroortii la gaarinay magaalada kusoo noqonayaan si aan loo ogaanin oo raadkooda loo raacay 3 maalmood buu ku jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ka baxay halkaas wuxuu 2 geela ayay dalbadeen weliba isaga hal buu raacay hashaas ayaa markaa loo keenay ninka keenaya markaa oo ay raacayaan oo geela ku hogaaminaya ama hasha ku hogaaminaya ninkaas ma aha nin islaama cabdullaahi binu ariiqat addaylamiya qabiil daylami ka dhashay waayahay nin baa maqlay markaas muxamed muxuu ahay waa la raadiye waayaa qofti aragta madaxiisa keenta ama isagoo nool keentana 100 halaad inuu abujahal siinayo suraaqa binu maalik waa maqaliyey oo magaalada dibadeeda degan ninkaas wuxuu ahay waxaa loo sheegay inuu nabiga maraayo meel ku dhow asaga oo la arkay markaasuu wuxuu yiri war nabigi ma ahee iska jooga wuxuu is leeyahay 100 geela yaan lagula qayb gelin ee asaga soo dil ee madaxiisa gey warankiisa uu qaatay seeftiisa uu qaatay hubkiisa uu qaatay silaaxiisa uu qaatay yani wuxuu noqday mutasallix mid ishubeeye washubeeye keligiisuu farastiisa ku orday markuu ku orda nabigu uu ku dhowaaday wuxuu arkay abubakar inuu dhinacyaalka fiirihayo nabiguna uu horay kaliya fiiraayo waxna uu akrinayo markuu inuu ku dhowaado uu damcayo ku dhawaalahay aa dhulka la go'ay markaasuu yiri nabiga nabiyow kuma dilaaye maxamedow kuma dilaaye markuu ku dhawaaday haddana waa fasaxay nabiga markii kale haddana dhulka la sii go'ay markii saddexaad iyo farastii isagaba dhulka wada galeen markaasuu yiri amaan 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 nabigu waa ku soo jeestay wuxuu yiri dad ha u sheegin amaan aan ka helna adiga cid aad u sheegtana ayay jirin maxamed halkaa maraya ha oranin waa ka yeeliyay ninkii mar dambe uu sheegay marka uu sheegay oo la ogaaday inuu nabigi baxay geelina oo waayey nabiga calayhi salaatu wasalaam madiina u galay maalmo usbuuc kaamila ayaa madiina laga sugayey hadalkii inuu soo baxay ahay ayaa la maqlay oo soo baxay laakiin meeluu aadayo lama yaqaan waxaa la isla madiina aadaa waxaa jirta rag uu heshiis la galay oo 12 oo heshiis la galay ayaa jira oo baycatay alcaqaba alula 2 baycadood waay marna 3 marna 10 lamanay ahayn dadka heshiis la galay kacab binu maaliga kamid ahay dadka heshiiska la galay inuu madiina u soo wareegi doono nabiga marka mar walba waxaa la fiirihaa subaxdii waa la fiirihaa galabtii waa la fiirihaa xilli ay qoraxadu kulayl tahay oo duhurkii la joogo ayaa nin yahuudiya geetimireed inta koray oo arka nabiga oo soo socda markaasuu yiri yaa bani qaylata bani qayla waxaa la yidhaahaa aws iyo khasraj bani qayla laisku yidhaha jadkoodii awohoodii waay maxamedkii aad sugayseen aan idinkugu bishaarayhaa waa kaasuu yiri waa soo baxay farta ugu fiiqay waa lees diyaarshay caruurtii iyo naagihii iyo wixiga iyo durbaankiyaa la keenay dafkiyaa la keenay oo la garaacay waa loo garaacay madiinow galay gelitaankaas iyo bixitaankaas oo madiina maka ka baxay ayaa waxaa laga dhigay taariikhda islaamka sanadka islaamka maalinta uu kow yahay maalintou bilowga yahay oo maantoo kalaa ayaa laga dhigay yaa ka dhigaya oo sameeyey muxuu sa arkay kii sameeyey waa cumar
بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. طبعا كجنة اللي بشارية إيو كمدي هي وانا نينكي خلافة إسلامك أبو بكر لبصر يبر مركو هاي قبطي انت بدنا إسلامك إفريقيا سوق لي إلى مصر إلى تونسيا أيو سوق قارسية إسلامك وقوينا وهو قارسية بلاد الفارس هونن. فارس مركب مقشو محو هاي هل دولة مع لح دولة واي وحاكمة إيران أو زباكستان أو شيخ بخاري مشو كنت وياها زازاكستان أذربيجان محو هاي كرمان محو هاي قولada haddan oo daalibaanka Afghanistan intaas waxay ku hadlaan afka la yiraahdo Farisiga ayay ku hadlaan. marka taariikhdan waxay ka dhalatay hijradii nabiga iyo cadaawadii Quraysh oo nabiga inay dilaan ay go'aansadeen laakiin ay ku fashalmeen. Ibliisna uu ku fashalmay ayaguna ay ku fashalmeen ka horna cadaadin fara badan nabiga iyo asxaabtiisa maka lagu geystay oo xataa la takooray oo buuraha xataa sanadkii saddex sano ay ku jireen buurahaas ay dhibaato kula jireen ee markaa baahi ay ku laysay laakiin ha yeeshee ay ka soo baxeen markay Qurayshta iskhilaaftay ee qaar ka mid ay ku dhaarteen inaysan aqbalayn inay ahalkooda ay meesha ku jiraan. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinkaas uu soo maray ha soo maree midda ugu xoogga badan waxay ahaaday midii maxuu ahaay dagaalkii meesha uu tegay dagaal uma tegin oo sulxa ugu tegay dagaalka Uhud dhibaato u lahay dagaalkii kale oo dagaaladii kale oo cusra ay u dambayso oo onka raadka asxaabta gaajada ku laysay maxuu ahay dhibaato u ahay laakiin midda ugu dhibaato badan waa midii waxuu ahay magaalada la Taa'if وعائشة ترى هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال نعم أجل وتا وحوكا مركز وحوري قلدا أن إمدي محو آي هير طائف وانا إحميا مركب محله تاريخية تاريخ ذا أو تنا عربت بلا هين تاريخ نصارى ذا له تاريخ أو عيسى يهود تاريخ إلهد عربتنا تاريخ أن لشيء كريم أو محو آي dagaalo iyo waxyaalo iyaga dhexdooda dhacay ka ratibmay ayay lahayd. marka ummadayda waxaan ku tusaalaynayaa dadkayna aanu jecelnahay inay maalin kastaba taariikhda nabiga iyo hijrada ay xasuustaan midda ay u faystayayaan oo ay ixtiraamayaan iyada ay ahaato oo midda miilaadiga nataalaha nasaarada aysan xushmayn maxay la taas fasaada lagu sameeyaa tanna cibaado ayaa lagu sameeyaa. waxaan idin rajaynaa cibaado wanaagsan ismaqal wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.